madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu munaasabada Ciid al-Fidriga awgeed wareegta madaxweyne uu ku cafiyay maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman ee ku kala jira xabsiyada dalka kuwaas oo tiradoodu ay dhan tahay 511 maxbuus. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad xubintiisa 5aad markuu madaxweynuhu arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 149aad markuu madaxweynuhu tixgeliyay in afis loo fidiyo maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman munaasabada Ciid al-Fidriga awgeed ee sanada 1439 tirsiga hijriyada kuna beegan sanada 2018 madaxweynuhu markuu la tashi la sameeyay hay'adaha ay khusayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta uu afis buuxa u fidiyo maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku jirta taasoo ay tiradoodu dhan tahay 511 maxbuus. afiskan uu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saameyn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raadadka ciqaabeed ee ka dhashay dambiyada ay ku xukuman yihiin maxaabiistan afiska loo fidiyay sida ku xusan qodobka 29aad ee xeerka ciqaabta guud waxa afiska fulinaya xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. wareegtadan waxa ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi.